goobtani waa goobta gacan libaax waxaan ku suganahay godkii gacan libaax isla markaana imika waxa ila socda yaasiin ibraahim maxamed fahmi kaysa xaaji ducaale maxamed ibraahim british iyo aniga oo ah naasir cabdilaahi guuleed waxa nagu heliya dad ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka mid yihiin 3 wiil godkani waa god taariikhi ah isla markaana sida arkaysaan waa god soo jiidasho leh waa god heer caalami ah isla markaana abuurta Ilaahay sameeyay yahay mid aad la yaabkiisa leh godkani muuqaalkiisa halkaas warkii waa xaqii sare ama dibadii ama daaqadiisii sida idin muuqata daawadayaal halka cid gaarmayso laakiin waxaan idin la wadaagayaa bal muuqaalada gudaha saami isla wada aragno cajaayibka godkani leeyahay godkani waa god ay ku noolaan jireen libaaxyo fara badan waana libaaxyadii loogu magac daray gacan libaax ay ku noolaan jiray soo kale dadka deegaanka waxay noo sheegeen in shabeeladu ay u tahay godad laakiin dhiiranaan iyo karti badan oo aan muujinay awgeed waxaan ku guuleysanay inaan godkan soo galno maxamed ibraahimow british yaro warbixina bal aragtida godkan iyo cajaayibaadka kaaga muuqda adoo nala wadaagaya inaad fiidooga uga faa'iideysato waad mahadsantahay maanta waxaan ku suganahay buurta gacan libaax xarunta gobolka saaxil jawiga waad aragtaa waxaan wax kale kuma galatay naasrow waxaan filayaa inay tahay bahaliyan TV-da ama filmaanta inta aan jirnay qaaqda inta badan lagu soo meteli jiray gobolka Sanaana waxaan leenahay Soomaaliland iyo gobolka saaxil baa laga helay goobihii lagu dhigi lahaa aflaamta caalamiga gudoomiye fahmi maanta nooc kasta oo la sugu isticmaalo gudoomiye fahmi kaysa ku soo dhawaan shaashada buraxad naga warbixisaa gudoomiye godkan waan codsanay in la soo tuso maadaama yahay godka gacan libaax bal aragtida hore aad ka aaminsanid imka aragtida indhaha ku aragtay maxay ku kala duwan yihiin wallahi fikirkan qabay ee aan gacan libaax oo maqli jiray oo ka qabay iyo muuqaalada arki jiray iyo waxa hadda indhahayga ku arkay aad buu kala gedisan yihiin yacni wuxuu balmoodi meel iska kayro oo iska caadiyo de buuro caadi ah laakiin godadka iyo huladaha soo marayna iyo jaranjarooyinka ka soo dhacnay waxa weeye wax muddo meelaha ataagta ahaayee qadiimiga ahaayee sidii tiiba Sibitaaniya Greek iyo tiima Saarida kale ee muddo godadkan say xardayn say qurux badan yihiin qofkii day tahay markii ugu horeysay meesha deegaan waxaan amaanin badan isku soo noqonaa tuu ka cabsanaya marka soo galitaankeeda والله صنت ياسين حيلا جو ياسين إبراهيم محمد أما ياسين لقى عده ولسنا ركتيسا هاي نلود أجو يا عجايب كبالبورتهم كاركي مركو رأيت بعض مهندسين runtii maanta waan halkan dalxiis ama fisid aan ku joogno waxaanu nimi buur aad runtii u weyn oo marka si loo eegana aan oran karno mararka qaar wax noqon kartaa mucjisay noqon kartaayo de inagiyo dhagaxaan iyo buuro ay naga dul sareeyaan oo aynu hoosteedii joogno runtii anigu ma maqal mana arag maanta ay ugu horeysa maanta runtii taariikhda way gashay waana meel aad u jawi macaan runtii waa meel qabow de waxaaba la igu libaaxiye iyo shabeellaha ku noole hadaan ku nooleen waqti xadarkan waaban hurdi lahaa oo waan ku nasan lahaa runtii qaab ahaan marka meesha soo waagto waad ka baqaysaa oo waxyaabaha kale cajiibka ahna waxa kamid ah in la yidhiba mararka qaar godadku markaad godadka soo gasho xataa tooshku baqtiyaaba runtii waxyaabo aad aan aqli gal u ahayn laakiin si waxa kamid ah dhacdooyinka adduunka aad baad u maasantiin